بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داود الكيم با ميل بو joogtaan soo dhawaada hadii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar hadii aad naga daawanaysa baraha kale ee Facebook sidoo kale ku soo biro asxaabta nagu xiran kamid noqon qodobadan barnaamijkan kugu soo gudbin doonana waxa kamid noqonaya wasiirka amniga oo ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadayo mucaaradka lafta gareen oo la cabsi galiyay madaxweyne farmaajo oo hal arin ka hortagaya tallaabo halis ah oo filla Soomaaliya ay ku dhaqaaqi doonto maxaa loo fasiran karaa hadalkii Muuse Suudi ee Mahdi Gureed ka dhanka ahaa soo dhawaad qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 24 bisha 11 November sanadkuna waa 2020 wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo shalay ka hadlayay madal la isugu geeyay ciidamo kala duwan oo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay hadal si aad ah cabsi galiyay ugana xanaaqeen inta badan musharaxiinta hadalkaas ayaa waxa uu ahaa in aan loo dul qaadan doonin in musharaxiintu wixii ay doonaan ay sameeyaan waxa uu carabka ku adkeeyay in amniga qaranku uu yahay mid mas'uuliyad wadareed ah oo ay mas'uul ka saaran tahay xubnaha mucaaradka ee Muqdisho ku shiraya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu wasiir Xasan Xundubey sheegay in mucaaradka aan laga aqbali doonin inay qalqal geliyaan amniga dalka garan caasimada oo gacan bir ah lagu qaban doono si aad ah oo aan gambasho lahayn ayuu ugu hanjabay in uu tallaabo degdeg ah qaadayo hadii musharaxiintu ay isku dayaan inay qalqal geliyaan amniga caasimada wasiirka oo hadalkiisa wata waxa uu yiri waxaan mar waliba ku dadaali doonaa inaan xoog saarno xaqiijinta amniga inagu aan ugu gamban doonin mucaarad iyo muxaafid waxa sidoo kale wasiirku sheegay in mucaarad iyo muxaafid labadaba mas'uul uu ka saaran yahay amniga isla markaana cid ay si gooni ah u turayaan oo san jiri doonin hadalkan waxa si kala duwan u fasirtay musharaxiinta xilka madaxweyne Doonis ee Muqdisho ku shirsan waxa ay sheegeen in marsiyo loogu raadinayo shirarkooda ay Muqdisho ku qabanayaan si loogu soo gambado arrimaha amni musharaxiinta qaarkood ayaa isku soo hadal qaaday sida aan xogta ku helnay hadalka ka soo yaray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale Xasan Xundubey ayaa waxa uu hadalkan ka jeediyay goob ay la soo geeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed oo ay goob joog ahaayeen taliskii ciidamada booliska ee gobolka Banaadir iyo hogaanada kale ee ciidamada wasiirka waxa uu heliyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Dubbe iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ujeedka hadalkaasi ee wasiir Xasan Xundubey ayaa waxa lagu sheegay inuu yahay mid lagu cabsi gelinayo mucaaradka oo looga digayo inay qaadaan tallaabooyin kale oo hor leh waxa aad looga cabsanayay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mucaaradku u adeegsaday awood isaga oo maraya wadiiqooyin aan sax ahayn mucaaradka ayaa arrinkan waxay ka qabaan cabsi aad u xoogan dad badan ayaa aaminsan in filla Soomaaliya aysan ka baqan kareynin in weerar ay ku qaado musharaxiinta amba ay ka dhantaasho shirarkooda maxaa yeelay hore waxa loo weeraray xubno mas'uuliin sarsare ah sida guriga musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkaas oo lagu diray ilaa 6 askari ilaaladiisa ee isna dhaawac lagu gaarsiiyay waxaana weerarkaas geystay xubnaha tan ka tirsan taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwa oo hadna laga baqdin qabanayo in ay weeraraan guriga kale oo ay leeyihiin musharaxiinta Muqdisho ku shiraya ayaa la aaminsan yahay in culays aad u xoogan oo xajmigiisu uu sareeyo ay ku hayaan filla Soomaaliya ayaa dhankeedu waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii ay kaga hortagi lahayd falqadaasi dhankaas kaga soo butaacaya ee ka imaanaya xubnaha musharaxiinta ah haddii aynu eegno koonfur galbeedna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen ayaa lagu soo waramayaa in culays aad u xoogan uu soo wajahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay wadaan mooshin ka dhan ah madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen iyaga oo sheegay inuu ka gaabiyo howlihii loo igmaday arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ka baxay dhowr ballan oo baarlamaanka horjeediyay kuwa ugu badnaa in uu wax ka qaban doono xaada ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose xildhibaan ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay gudbiyeen mooshin ka dhan Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen waxayna u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Fiqi lama oga mooshinka inuu qaban doono gudoonka baarlamaanka in kale hasi yeeshee xildhibaanada qaarkood warbaahinta la hadla waxay sheegeen inay rajo wanaagsan ka muujinayaan in meesha uu ka baxo Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen waxa uu awood aad u muuqato ka heli karaa hadii mooshin lagu qaado filla Soomaaliya oo saaxiib dhow u leeyahay waxaana hadda magaalada Baydhabo uu kula qaadanayay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Lafta Gareen ayaa waxa uu ra-iisul wasaare Roble iyo xubnaha golaha wasiirada u ballan qaaday in xildhibaanada ka imaanaya maamulka Koonfur Galbeed ee heer federaal ku matali doono ay noqon doonaan kuwa si aad ugu dhow oo ay tahay in ay xushaan hadba qofkii ay doonaan. Villa Soomaaliya iyadoo arrinkaas ka fikirayso ayay culays weyn saari kartaa in la badbaadiyo Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen. Xildhibaan Idriis ayuu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in mooshinkan uu yahay mid waqti hore la soo unkay ama la soo curiyay hase yeeshee hadda ay soo bambixiyeen maadaama culayska Villa Soomaaliya ay saarayso Cabdicasiis Lafta Gareen uu yahay mid xajmigiisu aad u sareeyo. geesta kale madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu wadaa qorshe uu kaga hortagayo musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho. qorshahaas ayaa waxa uu yahay inuu kala dhantaalo musharaxiinta halka ku shirsan kuwaasi oo qaarkood u ballan qaadayo lacago koona u ballan qaaday inuu xilal siin doono. Villa Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii musharaxiintaas ay u kala jebin lahayd. musharaxiinta oo ku shirsan hotel ku yaala magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii maalin ugu dambeeyay waxa ay qaadanayeen kulamo joogto ah oo ay kaga soo horjeedaan qaabka ay wax u wada dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana xalay ku biiray xubnaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya qaarkood sida gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdulla Sheekh Ibraahim Mudee, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka soo jeeda gobolada waqooyi shalay ayay madashaasi tageen. arrintan Villa Soomaaliya culays aad u weyn ayay ka dhex aragtaa waxayna ku dadaali doontaa sidii ay u kala dhantaan lahayd. ila xogaal ahna waxay sheegayaan in qorshaha hadda socda uu yahay in musharaxiinta qaab farsamaysan loo dhexgalo isla markaana loo kala dilo musharaxiinta sida aadka barnaamijkan u karkarinaya ee ka soo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa ugu tun weyn Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuwaas oo culays aad u xoogan saaraya Villa Soomaaliya si ay wax uga bedesho guddiyada dhawaan la magacaabay. waxaa kale oo aad ugu dadaalayaan inay Hirshabeelle iyo Galmudug wax ka bedelaan guddiyada dhawaan ay soo magacaabeen. guddiyadaasi ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa ay diidan yihiin xubnaha musharaxiinta ah ee daneynaya xilka madaxweyne ee Soomaaliya. talaabo halis ah ayaa Villa Soomaaliya waxa ay la filayaa in ay ku dhaqaaqdo ama ay ku dhawaaqi doonto. talaabadan ayaa waxay tahay in Villa Soomaaliya ay wax ka bedeli doonto guddiga doorashooyinka ee dhawaan ay magacaabday. xog hoose oo aynu helnay ayaa sheegaysa in guddiga doorashooyinka ee dhawaan la magacaabay wax ka bedel lagu sameyn doono si loo qanciyo xubnaha musharaxiinta ah ee u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya. guddigan ayaa waxaa suuragal ah in laga talageliyo waxaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda uu danaynayaa in uu wax ka bedel xoogan ku sameeyo guddigii dhawaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. beesha caalamka iyo sidoo kale daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa culays aad u xoogan ku saaraya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wax ka bedelo guddiga dhawaan uu magacaabay kaas oo intooda badan la sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo saaxiibada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaqaaqo talaabadan uu wax kaga bedelayo oo guddiga doorashooyinka ee uu magacaabay waxay noqon doontaa in mucaaradka ay ku qancaan isla markaana ay ogaadaan in doorasho loo dareero. hase yeeshee dad si aad u darsa siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya inay adagtahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wax ka bedelo guddigan maadaama uu ku adkeysanayo haddii guddigan uu wax ka bedelo ay dadka qaar sheegeen in la micno noqon doonto in laga guuleysto oo musharaxiinta mucaaradka ay awood yeeshaan. ugu dambeynna ikhtiyaari senator Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ah shakhsi aan la gamban warkiisa ayaa shalay waxa uu weerar toos ah oo qayaxan ku qaaday xubno uu kamid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Muuse Suudi Yalaxow ayaa waxa uu sheegay in Mahdi Guuleed uu dhibaato xoogan ku hayo koonfurta Soomaaliya. waxa uu sheegay in reer waqooyi looga dacwoodo oo cishta ayna jirin. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in Amxaaro uu yahay isla markaana Amxaaradii lagu tirinayayna uu markaasi cisho weysay.
waxaa sidoo kale uu sheegay in ayna aqbali doonin in mar waliba wixii la doono laga sameysto. waxaa laga cabsi qabaa in hadalka Muuse Suudi Yalaxo uu saameyn culus yeesho. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa hadda la aaminsan yahay inuu yahay shakhsiga ugu saameynta badan madaxtooyada Soomaaliya, waana furaha koobaad ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mahdi Guuleed ayaa si aadan mar waliba goobaha fagaarayaasha ah wuxuu uga taageeraa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si gambasho la'aan, waana sababta uu mar kale ugu soo laabtay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu dhowr jeer oo hore sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shakhsiga dalkan samata bixin karo, isla markaana uu ku guuleysanayo doorashada madaxweyne ee dhawaan la qabanayo. sidoo kale hore waxa uu Mahdi Maxamed Guuleed Qadar u sheegay hadallo mucaaradka lagu karbaashay inkastoo uu jawaabay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad. Qiyaaray barnaamijkii waa naga inta oo aad ka daawanayseen barta YouTube-ka aan ku leenahay sidoo kale Facebook. haddii aad nagu cusubta soo dhawow oo kamid noqo asxaabta nagu xiran. nabadgelyo.